nin taajira ayaa masjidka soo galo ducaysanayay nin ay qaraabo yihiin oo baahnaa ayaa markaa aqalkiisii buu ku waayay xafiiskiisina markuu tagan waa laga celiyaa wuxuu yidhi masjidkee buu ku tukadaayo masjidka halkaa ku yaalo ku tukadaa baa la yidhi masaajidkii buu dhex fadhiistay markaa dee ninkii taajirkii dad muxsiniin iska jiro ilaahay ku xidhan moogtahay oo ilaahay cilaaqa la leh iska alla bariya markaas kiina albaabka intuu ka baxay buu dibaddu ku sugayaa ilaa dhanacu ka soo galay buu arkayay markaasuu wareegaayo markaasuu arka ninkoo ducaysanaya haddana uu yar wareegaayo ninkoo weli ducaysanayo salaad sunna intuu tukada iska alla baryaaya markuu ka soo baxay buu ku yidhi baahida adig ku hayseed la alla barya maxay tahay buu ku yidhi annaka yahayd buu yidhi inaan meelahan ku baryootanne adigu waad haysataa ee maxaad gacmaha la taagtaagi manakaad nagaga dhumanaysaa meesha soo bax buu ya allah ya muslim taajirku ilaahay buu u baahan yahay miskiinkuna ilaahay buu u baahan yahay madaxdu ilaahay bay u baahan yihiin dhallinyaradu ilaahay bay u baahan yihiin shucuubtu ilaahay bay u baahan tahay ilaahay bini aadamku lamxata cayn kama marmi karaan ilaahay waan u baahannahay lidaalika masaajidka diinta aad ku dhaxaysatid ayaa la doonaya inaad dibadda ula baxdo ood garataa sidaad masaajidkan aad ugaga cabsanaysa ilaahay aad ugu dhex baryaysay eed bini aadamka xaqiisana aad iskaga ilaalinaysay ee sheekada adduunyada aad iskaga ilaalinaysay ee haddaad aragtay mid telefoonkii masaajidka dhexdeeda ku hadlaya aad u leedahay war meeshu waa miskiida dibadda ula bax aad u leedahay ayaa la doonayaa bannaanka markaad u baxdana inaad naftaada sidaa u muraaqabayso oo tidhaadid ilaahay bay arkaayo ilaahay bay maqlaaya yaa arkaayo ilaahay laa tudrikuhu al-absaar wa huwa yudriku al-absaar wa huwa al-latiifu al-khabiir khalqigiisa meel kastay joogaan ka u jeeday arkaya waa ilaahay haba ilaahay kama qarsoodo يعلم سر وأخفى وحلابت هذا كجرة وأبيه ولالك يا أديك السرتين دحمرتي إلهي وأبيه صفوان بن أمية أي عمر بن وهب نكال لو نجري أيكم مركا لبدود ومشركين ومكة أي جوغان وزمن النبي عليه الصلاة والسلام waqcadii dagaalkii badar baa laga soo noqday 7 gaaladana waa laga laayay 7 gaalo ana nabigu waa qafaasho uu xidho uu qaatay labadanna waa qaraabo Umar ibn Wahab inankiisii wuxuu ku jiraa 7 kala xidhay Madiina loo qaatay buu ku jiraa xilli waqti dhahira ay tahay oo magaalada Makka waa magaalo kullu dadku ay kala seexdeen ayaa labadoodii baa meel wada fadhiistay dhagax agteeda wada fadhiisteen markaasay ka soo qaateen waqcadii dagaalkii badar dhibtii loo geystay iyo jabkii ku dhacay marka Umar ibn Wahab baa yiri haddaan maanta anigu aan heli lahaa dhibta Maxamed uu noo geystay iyo guusha Maxamed maanta uu naga helay tu aanu adkeysan karna ma ahine sumcadii Quraysheed buu dilay haddaan heli lahaa maanta deyn la igu leeyahay cid loo raaco ubadkayga inay iga dayacmaan aan ka baqayna cid iga kafaalo qaad haddaan heli lahaa magaalada Madiina intoon tago xeeladan ku tagana anu maanta waan haystaayo inankayga baa iga xidhan oo itu sabaan oran lahaaye Muhammad aniga soo khaarijin lahaa buu yiri Safwan bin Umayya ayaa ka faa'iideysto yiri ma samayn kartaa haa waan samayn karaa ciyaalkaagana aniga ii keen oo ciyaalkayga ka mid noqonayaan deynka lagu leeyahay aniga halay soo raaca buu ka yiri waa labadoodu kaliya Makka iyo Madiina masaafada u dhaxaysana waa taqaanaan la 400 kilometer وصار سعودي آلات كان زمن كان إمك أسكت تورتور إنه فيسبوك يا واتساب يا بلايا جن مجري زمن كاس وصار سعودي مدينة وصار قال عمر بن وهب سوى سيفتي سجاني قارن مر علي مركو عمر بن الخطاب بايري وعمر بن وهب باها شيطان من شياطين قريش ويانه سيفتي نواكا جاني قارن قرت كسيتي أردو نبي إلى علي يقول نبي نواك جوج نبي كإلى علي صلى الله عليه وسلم شرق مو سعودي خير ما سعودي
markaasuu ayaa rasuulka loo sheego lagu yiri nabi allah Umar bin Wahba soo galay magaalada soo saamahan Umar markaa buu nabigu yiri soo galiya loo soo galiyay maxaad u timiday buu ka yidhi waxaan u imiday inankaygii oo asiir oo gacantiina ku jiro inanka agtiina aad ku haysataan inaad ihsaanna ii sameeysan waan doonayay ilaa tusana waan doonayay buu yiri oo ka wada hadalno markaa buu nabigu ku yiri seeftana qoorta ku sidata maxay tahay hada wuxuu qabbaha allah buu ilaahay haba duleeyay seeftana ma waxbay noo tartay buu dagaalkii badan iyadoo tan wadano Saudi-ga 7 naga laayay 7 naga soo qafashay naga soo xidhay ma markaa buu nabigu ku yiri fariisa buu yiri arrinka ma harikaadu socoto aniga kaaga warramay oo fariista adiga Safwan bin Umayya saacadu markay halka xilliga ahayd meel heblaayad fariisateen Makka markaasaad soo qaadateen dagaalkii badar dhibtii leeyni geystay markaasaad tiri hadan heli lahaa daynkayga cid maanta loo raaco ubadkaygana aan u dhiibo iga kafiil noqoto hadan heli lahaa Madiina intuu tagaan Muhammad aan kaga soo taqallusi lahaa fursadii buu ka faa'iideysto isaguna daynkiina uu ka qaaday ubadkaagiina uu ku dayactiray ee arrinkaadu socotay kaabo haaye kanaad hadda horteeda ku sheeganaysa maaha anigana ima dili kartid ilaahay baa ilaaliyo rasuulku ku yiri ayaa nabiga uga warramay allah baa uga warramay markaasuu ninkii yaabay markaasuu wallahi ya Muhammad wallahi baan ku dhaartay ilaaha xaqiisa aad noogu yeedhaysid waan beeninaynay warka ilaahay uu jibriil kugu soo dhiibayna waan beeninaynay waana sida hadda adigu hadalka aad u dhigtay weeyaane warkay horeen sheegay waa waxba kama jiraan warka dambe adigu aad tidhi baana saxa cid warka iga ka soo horeyso ku sheegtayna ma jirto labadeeda cidna saddexaynaysa ma jirto illa allah ilaahay mooyaan ilaahay baan kugu dhaariyay buu aniguna waan ku rumayn adigane ilaahayna waa rumayn tawxiidka ay qirbu ku yiri halkii buu ku qiray ilaahay marka waxa dunyada ka dhacaya ka og waa ilaahay waxa laabtaada ku jira ka warqaba waa ilaahay ishaada in wax aragto ilaahay amarkiisa u baahan tahay dhagtaadu inay wax maqasho ilaahay amarkiisa u baahan tahay ilaahay tabaaraka wa taala inuu adiga wax ku tuso ka indho u baahan ma gacantaas ka haysan bas ilaahay isaga ka taliya koonka tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatan hatab امرأة أبي لهب أيها النبي أوتمد عليه الصلاة والسلام يضع دقح سدته أبي بكر بأوتمد وهل كان فرديا رسولنا واقف فرديا صلى الله عليه وسلم أبو بكر يا رسول لنا عسكوها يعني مركز إلى هاي أبو بكر هو صاحبك ما نو إليه النار بتكون دميني دونته وقبل يجي يقول صدري قبل بقرآن كواي ستاموكت أبو بكر رسولك إيجا هذا ما أنت محمد أنا وأنرك لها بيتري بقى حيسك نستوى مدحا بشخصين لها بيتري مركز كان نقطب أبو بكر نبي ساوي يا رسول الله ما هناك أركين ما أنا أرجع يقول أركي لهيد بإلهك قادر يقول إنه هيبل محو حكوا أركا إيش وحكوا أركا من لنا هاي ما يأمرك إلهي وحكوا أركا دكتو وحكم مغلا ما دكتو أمرك إلهي بهو بانتاين مقاشو لوكتادو إنه سعوت إلهي أمرك يسيو باهنتا خالق وإلهي مركا إلهي معرفتي سوا واجب قف كستو مسلم على قرب إلهي ونبو قرتو تصرفاتك عالمك إلهي بس كلي مركا الشيء وقوه الرأي بني آدم كان لقوه واجب وإلهي معرفتي سن دينتنا النصيحة دي هل كاسيكا بلابنتا لله كن عبدا لله إلهي أدون كيسي ونبا النقو